ودنبيه ولا قشي haye maxaa marka Soomaali waa iswada dishay وداي صاب عليهم وحافهم وداي وليسك انت اللي اجي واحده عي كل 966 ورحلنا اللي يرلع ما انت الله وقف لوgu ceebayna waa fahmi waayo ilaa baan kugu dhaarsay taas adaa ka jawaabi karo nin raga u ah laakiin anigu waqtigu i dhibaataynay Soomaali isma dilaynin adoo ala xasuus soo ka qaaday daawiciisana ilaa maantaan u dakranahay marka idinka idinta la aniga kullay waxaan aaminsanahay xaqiigu ma qarsoomaay daahiro ilaahayna ma qarinin oo adaa marqaatiyo way okay way aniga Soomaali oo dhanaan badacwo u qabaa markay taas gaarto way arintaada waa serious waa sheegaya xaqa fiiro ku dilaaca waa Cabdilaahi Waanta wada hadalnay duniya maanta wada hadalnay waa sheekaysan dadkii oo dhan ninkii aad marqaatiyo saacadka waa sax waa marqaatiyo ku yahay waxa uu og yahay kiiska dhawaalo socaya dad kale oo kiiskaaga la socdo waa helay waxa soo galay meesha dad caanaha soo galay kiiskaaga mid kale waxaan ku ogaaday kiiskaaga inay dhowr iyo 20 qofood oo dhalinyaro ah oo Soomaaliya ay jireen oo gabdhaha ku jir waagii siyaad barre soo raab gareeyay ciidanka ka baad oo waliba iyada lagu goobtay markaad ka hadasho ayada waa lagu goobtay ma ayada wuxuu qofka kaliya ee habeen kasta la watay aajid aniga ma ku sheegay haday dhibaatadu dhacdo in lagu rukumanayo sida 4 rukunki hadda waxaan anaga u soo taagnayn inaan waxaan rabnaa dawladdan hadda jirta ee tan imaan doontaba daahirow aniga maanta alxamdulillah waa noolahay waadna ii jeedaa xoogayga iyo inaan wali dagaalamayo waxaan u dagaalamayna waxay tahay xuquuqdayda dhiigayga iyo naftaydaba waan ku leeyahay raggaas ilaahay maanta dal kasto dunida ka jira waa loo xaq sooraa haweenka intaan ka ahayn dalka Soomaaliya haddaad rabto in dalkaasi dego ama nolol laga helo waa inuu haweenku kow ka ahaada in loo doodo oo xaqooda la siiyo oo aniga aan kow ka ahay ما يوابلون ما يتصحق وعرفتك أوتيس ninkaas jawaab adaa u haaya ninkaas والله أنا بين كل شيء قاعد حل بعنده يمدح الدولة الصومالية أو دن عاوي سويا وحلا وسويا أنا وكيس كاغ الله وفدي hadday isugayaan daahiro way isoo waceena maxay ii soo dhaweyn waayeen markay idaacadda Shabeelle i wareysanaysay oo Xasan Sheekh la doortay hal qof maxaan u waayay Soomaalidan kaaga warramay Soomaalida ma fahamsanidin bidik ma saafi they not interested ma to the TV first attack walaysa ka bixi ee Shabeelle tag walaysa ka bixi maqaayadan marka waxa ka karina bas dadka xiisay oo program sameeyay haddii kala saameyn ma kuulaba maanta dhaqolkaada daahiro 20 milyan waa bartiiqaan aniga ma ahaynin oo sameey kritikada oo arrimo sameeyo kala socda haade wixii la qabsatay marka aniga karkariyo waxay ogyihiin wixii inaan baarayo dadku way xiisaynayaan aniga haddaa kiiskayga daba gashid ood ku guulaysatid waa kuugu duceynaa inaad ku guulaysato xaqayga inaan heli doono waa hubaa daahir waa hubaa xaqayga inaan helayo laakiin mid ayaan kuu sheegayaa daahiro nolosha leegu ignore gareey kuwa ila dhashay iyo kuwa maanta dad iigu xiga ayaa ileh يعني واد فهمي كرتا ماشي عن كحداي ظاهر نولش تورجر عن كنولا جوار أبقى الرأي ما هلا كبسة سودي كرتا لوجستا عينه سيدا ودي كرتا وح كسي فالح المجع عن وذن سيدا وسوق عادي كرتا حتى ولا وجستا بل أنا ما دبنا مساعي قاعد أدون كده وحكنا عفيري أدون كده وحكنا قبلها وقال سال على كبسة أدون كبسة كده معيبة أنا معصوم معه ملاك معه قدر يقول جوال ما يبعسيستي قبل سؤال محيوي ها سيدي بلو قف أيضا فكتة ما أقول له حيوي سيدي بلو قد يكره عدوك هذا الدم هيا عامس حتى نجيسو حتى أنت ما قصارة سارة أنا برنت وقبر سيف وقبر مستوهر وقبر أمريكا وقبر اسم الداوس وقبر حربي عاوفة دي أقول كي منير وقبر حربي عاوفة ده لكن محل ده هي متقعنا مركوري وريها ناقة الشناية ناقة هنقدر جوا ناقة هوس لقدي ناقة وريها رجع ماشي كهلا ناقي كهلا أنا وحدا ناقة كهلا يقول كي Soomaalida waa la qabsatay hadda waxa dhici doonta laba bil taal kadib gabdhaha Soomaaliyeed
قول كاس انت تقال ان رجع لا شيكيستا والله هذا أي ساسو sababta waxaan la baray wax leedo gabadha tahay naag waa tan naag waxay naag السلام عليكم داير على السوق السلام عليكم داير على السوق يورن ولال وعليكم السلام ورحمة iyaarkayga saa tahay maxkamadda caalamiga oo adduunka aad ka samaysan rabaa maandhow gacalo aku dhacay wixii ku dhacana ku sheega insha Allah taala jaanis isii dad la hadlo weysaa ay intay gabadha ali lacag uga qabiya hagu jogaa Sacuudi Carabi marka wax kala dhib kuma dhacay lacag ma ka maqsoma ma lacag un baa iga maqan bas wax kala dhib ma qabo ay bas marka aan yar soo xirto soo saar qolka ma waa ku soo dirqsan ku soo wacay si kasta wiilan aan iyaarkaygan aan iri si ay igu heli kartaba ii raadi wiilkaas maxkamadaan u begay oo reynta badan hood samaysay aduma abgaata ya aduma abgaata masduulata abgaarana abgaariya kata si fiican kuugu sheega horta hadda aniga aan ku soo galaan ku sheega yarkaan ay sida xaaladda kullu ku sheekaya iyaarkayga caday hay bas hay hadda barnaamijka ina jaanis isaan rabaa oo warka yaqa ay maam hay qofka soo qabto maamada marka ay keen hay way dadka iyaha ay moderateka waxa idin sheegaya meeshaan waa maxkamad gasooriyaal aldaari doona waxa idin ka codsanayaa dhubuqda joojiya dadka aad soo qabanaysan joojiya waxa rabaa dadka in soo qabtida dadka gasoorka maxkamadda ah iyo dacwad oogayaasha kaliya soo qabataan dadka waaweyn ee gabdhaha iyo wiilasha programka wax ka wada bas soo qabanaysiin nad qof kale wax la degdeg ma jiro waayahay munira ka soo bax muud ka soo bax munira khalaas ma soo wali munira dhima ma ka soo bax muudka soo dhow shit boy kuwii soo dhow waa dhawahay boqorka leebka hadda isku soo xirnay maanta dhan oo ku sugeynay maxkamadan waa dheer tahay maanta kiisaska isku soo daba dhacayaan marka kiiskii maama saafi halkee ku dambeysay ninka waa wada hadlay Cabdullaahi gabadhii uu qaba ayaana waa wada hadlay Cuur Maxamuud habartiisna waa wada hadlay ninkii uu iga diiday inuu ila hadlo niyo nin fanaanan ahay maxaan ka helay dagaalka uu wado markuu uu telefoonku la markuu ka tago wuxuu dhahay wuxuu ii soo qoraniyo Soomaaliya ma isdishay wax dhaca ku 960 maxay maanta looga hadlaa sababtaas ma yahay waxa inta laga soo hadlay 38 sano kadib laga hadlaa maxay tahay uu ii soo qoray adiga muku ayiday daahiro muku ayiday ما laga hadlaa ما fiiri nin baaskiil xaday 40 sano ka hor hadda maxkamad soo taagay nin baaskiil xaday nin baa xilligii dawladii lacag yar oo intuu qof ka dhacay baa loogu xisaabiyo magtii gudahay marka waxa waa qasab inuu yimaado iskeeno maya maxkamadda ka shaqaysato soo dhawo ku shiitay waa ku insiiso waa ku salaamay gudoomiyaha maxkamadda waa ku salaamay daayir cali soo dhammaan asxaabta sharafta leh oo maamada ugu horeyso fanaaniinta ii qaba fanaaniinta ilaahay ma aragtay haday yaqaanaan ninkaasay wax ka qaban doonaan asma waxaan ku weydiinaa asmay asma hadda hor ma tagaalaan ahmaatin way dadkan maxay ku haystaa